Okay, section 5.4 waxaan fiirin doonaa email etiquette and security. waxyaabaha inta badan ee tahay the good practice and security issues of emails. waxyaabaha dhaqamada fiican emailka maadaama aan ka sheekeynayno maxaa fiican iyo sidoo kale dhanka security-gan maxaa samayn karnaa. Checking emails regularly. talada ugu horeysa lagu siinaa waxay tahay emailkaaga si joogto ah u jeegaree. Develop a habit of checking emails at least once or twice a daily. subax kasto iyo galab kasto kale emailada jeegaree inay fariimo muhiim ah yeelaan u badan tahay. dadka caadiga ah ee emailada sida caadi u shaqeysto markay goobta shaqada soo galaan waxa ugu horeeya ka bilaabaan waxay tahay 20 or 30 minutes inay emailada akhriyaan ee ka jawaabaan wixii urgent ah calaameystaan ee hore uga jawaabaan oo kale. marka isbar adiga mobilkaaga ku xiro computer ku xiro jeegaree subaxda maxaa yaalo duhurada kale daa laba mar fiirin kartid 3 jeer hadaa fiirin kartid shaqada intaadan bixin nus saac soo reebo. soo isbar adiga markaa Soomaalida kale intooda badan email muhiim ayaa loo soo dhigaa maalin kasta way dhaafaan waxay arkayaan il kadib sababta ma furabo marka that's not good practice. hadii email timaado waa inaad ka warhaysid markaa. Respond promptly to important emails. emailada muhiimkana mar walba isku day inaad hore ka jawaabtid. Use filters and folders to organize your inbox. inboxyada xataa organization u sameeye. Next ayaan ku fiirin doonaa sidee emailada loo kala habeystaa folders loogu kala samaystaa iyo waxyaabahaas oo kale. marka mar walba qodobadaas inaad sameysid waa. Avoiding all caps. qodobkan waa very important. iska jir capital inaad isticmaasho always. marka la joogo emailada iyo WhatsApp groupska iyo Slack meelahaas oo kale haddii la arko qof qoraayo all caps capital qof wada qoraayo haddii la arko waxay la mid tahay standardkooda waxay la mid tahay shouting ay la mid tahay and unprofessional. qof qaylinaya la mid tahay qol hadii lagu jiro qof soo ma jiro xoog qaylinaya qofaa qaylinaya codkiisa dadka dhibsanayaan. email aad dirtay caps looga shidatay warbixintana waxaa ka dhigtay all capital ka dhigtay dadka dhan ku dhibsanayaan waxay leeyihiin ninkan waa nin qaylinaya waa this unprofessional. haddaa aragteen chat groupska meelaha foorumada dadka isugu yimaadaan policy lagu qoraa oo kor ah waxaa ku qoran fadlan markaa wax soo qoraysid ha isticmaalin all caps ha isticmaalin sababta all caps waxaa loo aqoonsaday inay tahay shouting inay dadka ku qaylinaysa loo fahmay marka ha isticmaalin. marmarka qaar all caps waa isticmaali kartaa ereyga keywordka muhiimka ku ah oo kale caadi waa markaas oo kale. Use proper capitalization for clarity and readability. tusaalahan qof waxaad rabtaa jimcaha ayuu kulankan dhacayaa soo sheekada way dheereed jimcaha capitalkooda dhig si qofka ishiisa hore ugu qabato bold ka sii dhig kaasoo kale caadi waa hal erey oo la rabo in la wada fahmo laakiin all capital ka dhigtay that's unprofessional. marka qodobadaas oo kale waa very important in iska jirtid. Identifying and avoiding scams. emailada waxay caan ku yihiin anaga inta badan Gmail isticmaalna hadda caan waxay ku yihiin scammers waxa la jiro dad waxaa jiro ka shaqeysta meeshaas. so be cautious iska jir dadkaas. unknown senders dadka aadan aqoon wax ku soo diray iska jir. maalin walba dadka waxa u soo dhaco sheeko qurux badan qodobadan ka sheekeyna yaqaanaan marka waxay ku soo qoraan subject line waxay ku soo qorayaan congratulations on you winning a lottery for example waxa ku guuleystay lottery ku guuleystay oo gaaraysa $1 million. Avoid clicking on suspicious links. so linking ku raacsanayaan fadlan ha ku dhufanin marka linkiga aadan aqoonin iyo attachment-ka aadan aqoonin waa inaad ka shakaysaa then aad faraha ka qaadaan. Look for red flags such as poor grammar. waxaa jira loo yaqaan red flags calaamada lagu dadareen waxa inay qaldan yihiin sida grammarka qaldan iyo dadka oo la gelinayo degdeg la gelinayo. tusaale qof waxa aragto ku dhahay hadaadan soo jawaabin within 24 hours account-kaadana waa laga xirayaa. so meesha waxa ku jirto degdeg ku jirto qofkaas wuxuu ku diidan yahay inaad qof tustid inaad ka soo fikirtid inaad dib u dhigatid ku diidan marka wuxuu leeyahay hadaadan maanta soo jawaabin you will lose all your credits oo kale waa luminaysaa. so always iska ilaali waxyaabahaas oo kale. The last point, keeping emails secure. So emailada dardaaranka ugu dambeeya waxaan aqaanaa emailka ka dhig secure.
haddii xataa qof kale lacag lagu helo ha ku adkaato inuu qaato. Marka waxaa jira wax loo yaqaano very strong password aa la sameeyaa oo xarfo ishay nambaro calaamado oo isku dar dheeray si qofka xoogaa ugu adkaato inuu isha markuu qabto. Isticmaal wax loo yaqaano 2FA oo loo yaqaano two factor authentication. Qofka emailkaaga raba inuu xataa jabiyo waa inuu isku haystaa emailkaaga, taleefankaaga fariin ku dhacayso, all these marka haddii isku daro qofka ku adkaan doonta markaas. Never share sensitive informations like passwords email through the email. So ayada naftirkeedana iska ilaali passwordkaada qof ha u dirin waa eagle passwordkeygana waa kaasaa oo kale qodobadaas oo kale waa laga fiican yahay markaa.